Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashir kale ee luqadda Ingiriisiga. Cashirkaana maanta wuxuu ku saabsan yahay words about money. Erayo ku saabsan lacagta. Waa words about money. Erayo ku saabsan lacagta. Markastoo muhiim ayay tahay inaad erayadaada kordhiso oo erayadaada aad dhistid ee luqadda Ingiriisiga ilaa aad ka gaaraysid 4,000 ilaa 5,000 erayo oo la isticmaalo maalin kasta. Marka aad ayay muhiim u tahay inaa erayadiina aad cashiradan aan idin soo gelinayno aad ku dhistaan, aadna qorataan erayada aan idin soo gelinayno cashirada erayada ku saabsan, aad qorataan, xifdisaan, aad maalin kastana isticmaashaan haddii Ilaah yiraahdo. Marka haddii aad kanaalkeena aad joogi jirin, fadlan subscribe nagu caawi si aad annagana dhiirigelin noogu noqoto aan annagana cashiro badan aan usoo gelino kanaalkeena. Mahadsanidin. Aan bilaawna cashirkii words about money. Erayo ku saabsan lacagta. An entrance fee. An entrance fee waa lacagta oo aad markaad meel gelayso aad dhiibtid sida museumyada iyo meelaha kale ee lacagta ma lagu galo. An entrance fee waa lacagta aad dhiibeysid markaad meel gelaysid oo qofka meesha fadhiya oo kaa qaadayo ayaa la dhahaa an entrance fee. Sidoo kale ereygan an entrance fee waxaa la mid ah entry fee. Entry fee iyo an entrance fee waa isku mid. An entry fee iyo an entrance fee waa isku mid. Marka midka aragto midka kale ayuu la mid yahay. Saas ula soco. Ereyga labaad aan u gudubno a membership fee. Membership fee waa lacagta aad bixinaysid xubin inaad ka noqoto urur oo jirdhis. Tusaale ahaan haddaan usoo qaadano urur jirdhis ayaa markaa xubin ka noqonaysid waxaa la bixiyaa membership fee. Lacagta xubin ka noqoshada ayaa la bixiyaa. Marka taas ayaa la dhahaa membership fee ayaa la dhahaa. Subscription fee. Subscription fee waxaa la dhahaa lacagta aad bixiso joornaal markaa rukumato iyo ama kale jaraa'idada quruxda iyo waxyaalaha ka sheekeeya jaraa'idada siyaasadda ka sheekeeya markaa rukumanaysid waxa laga qaadayaa a subscription fee. Lacagta rukumashada waaye. Lacagta rukumashada ayaa la dhahaa a subscription fee. School fee. School fees waxaa ogtahay waa taqaanaa waa lacagta aad bixinaysid ee iskuulka. Lacagta iskuulka ayaa la dhahaa school fees. Lacagta iskuulka. Sidoo kale college fees waa dhihi kartaa lacagta college-ka aad bixisid. Sidoo kale university fees na waa dhihi kartaa. Sidoo kale tuition fees. Tuition waxa waaye markaad ciyaalka iskuulay tagaan guriga markay kusoo laabtaan macalin ayaa galabtii ugu imaada. Galabtii markuu imaado waxay u baraa markaas tuition ayaa la dhahaa. Guriga wax ugu aqriyaa wixii ay soo barteen ayuu usii kordhiyaa. Tuition ayaa la dhahaa waxaas. Marka tuition fees ayaa la dhahaa. Marka ayadana sidoo kale ayaa isticmaali kartaa ereygan. Marka ereyga kale aan gudubno booking fee. Booking fee waxa waaye tigidh ayaa rabtaa inaad ka booking garaysato agency tigidhada ama dalxiisyada dadka geeya. Marka tigidhkii markuu kuu booking garaynayo wuxuu ka qaadayaa lacag la dhaho a booking fee. Sidoo kale ereygan erey la mid ayaa jiro oo la dhaho asigana service fee. Service fee ayaa la dhahaa. Marka waa laba erey oo isku macnaa laakiin ereygan macnihiisu saxda ah waxa weeye marka aad agency ka booking garaysanayso tigidhkaas lacag service ah, lacag adeeg ah ayuu ka qaadaa. Lacagtaas uu isaga bixiyo kirada meesha u kiraysan internetka waxaas oo dhan shaqaalihiisa siiyo. Marka lacag ayuu ku dul saaranaya oo la dhaho booking fee. Booking fee ama service fee ayaa la dhahaa. Aan ku celiyo ereydan an entrance fee. Entry fee waa lacagta marka aad meel gelaysid aad bixisid sida matxafyada iyo meelaha dalxiiska loo tago iyo xirooyinka xayawaanaadka marka la tago
an entrance fee ayaa bixinaysaa ama an entry fee. Membership fee waxaa la dhahaa iyadana markii aad urur aad iska qoraysid, aad xubin ka noqonaysid, lacag aad bixinaysid, ama gym aad iska qoraysid, lacagta aad bixinaysid membership fee ayaa la dhahaa. Subscription fee waxaa la dhahaa markii aad jaraa'id aad rukumanaysid oo guriga lagugu keenayo, oo isbuuciye ama maalin kasto ama bil kasto mar soo baxa oo lagu keenayo, waxaa bixinaysaa lacagta la dhaho subscription fee, lacagta rukumashada. School fees waa lacagta iskuulka aad ka bixiso caruurtaada ama adiga aad ka bixisid. College feesna waa la dhahaa. College feesna waxaa la dhahaa idana lacagta college-ka aad iska bixisid, caruurtaada ka bixisa ama aad iska bixisid. Sidoo kale ereygan waxaa kaloo u adeegsan kartaa university fees. Sidoo kale tuition feesna waa dhihi kartaa. Tuition waxa waaye markii caruurtaada aad guriga maxay ahayd macalin ugu imaado iskuulkii ay subaxdii soo dhigtaan, galabtiina macalin cashiradii ugu celinayo uu sii ziyaadinayo, waxaa la dhahaa tuition fees ayaa la dhahaa. Anaa kusoo daray si aan kugu faahfaahiyo ereygan inta meel aad adeegsan kartid. Booking fee waxa waaye agency aad tagtay, waxaa rabtaa ticket inaad ka jarato. Ticketkii wuxuu saaranayaa lacag uu ku dul saaranaya, lacagtaas uu kugu adeegayo waxaa la dhahaa booking fee ama service fee ayaa la dhahaa. Marka erayadan shantan aan ka gudbaynaa, waxaan u gudbaynaa kuwa kale oo ayagana oo ku saabsan lacagta. Cancellation fee waxaa la dhahaa iyadana ticket ayaa agency-gii tagtay, maxay ahayd ticket ayaa soo jaratay ama internetka ticket ka jaratay, waa baaqatay, arrin degdega kugu imaatay. Arrintii degdega markay kugu imaatay cancellation fee waxaa laga rabaa, waa rabtaa inaad iska canceshid ticketkii, lacagtaada lagu soo celiyo. Markaas cancellation fee waxaa laga qaadaa lacagtii aad ku canceli lahayd ticketka ayaa laga qaadaa. Small fee waa lacag yar. Low fee waa lacag yar iyadana. High fee waa lacag badan. Waxaa la macnaa large fee waa lacag badan. Big fee waa lacag badan. Medical fees waxaa la dhahaa lacagta caafimaadka aad bixisid. Medical fees ayaa la dhahaa lacagta caafimaadka aad bixisid. An annual fee waxaa la dhahaa lacagta sanadihii aad mar bixisid oo adeeg oo lagu sameeyo, ama gaarigaaga oo kale wuxuu ku jiraa lacag, wuxuu ku jiraa maxay ahayd insurance ayuu ku jiraa ama caymis ayuu ku jiraa, oo markii wax yar ka halaabto jidka lagugu imaanayo oo lagu sameynayo aad wacanaysid. Marka sanadkiiba maxay ahayd Yurub ama America qaarkood, shirkadaha qaarkood waxaa la bixiyaa sanadkiiba hal mar. Marka annual fee ayaa la dhahaa. Monthly fee waxa waaye lacag bil ah oo bil kasto oo maxay ahayd lacag bil ah oo bil kasta ah. Monthly fee ayaa la dhahaa. Marka waa sidaas. Aan ku celiyo cancellation fee waa ticket aad goosatay, dhibaata kugu timid oo waxaa rabtaa safarkii inaad ka baaqatid. Markii horena ticketka waxaa kugu darsanaa khidmo oo maxay ahayd caymis ayaad dhiibtay markii horena, oo haddii waxay kugu imaadaan lacagtaas lagu soo celinayo. Laakiin waxaa laga qaadaa cancellation fee, lacagtii aad ku cancelaysay ticketka oo wax yar ah ayaa laga qaadaya. Marka waxaa la dhahaa cancellation fee. Small fee waa lacag yar. Low fee waa lacag yar, waa isku macno. High fee waa lacag badan. Large fee waa lacag badan. Big fee waa lacag badan. Marka waxaa dhihi kartaa I need big fee, waxaan u baahanahay lacag badan aan u baahanahay. Ama waxaa laga qaadaybo maxay ahayd kuwa telefonaadka mararka qaarkood waxay kugu soo dalacanayaan high fee, lacag badan, ama large fee lacag badan, ama big fee lacag badan.
marka saas ayaa loo isticmaalaa. Ereyadaana maxay ahayd wax kaaga tiraya marka aad rabtid inaad qortid warbixin ku saabsan warbixino ku saabsan arrimahaas. Ereygii intaad soo celcelineed high fee markasta aad kusoo celcelin lahayd, mar waxaa leedahay high fee, mar waxaa leedahay large fee, mar waxaa leedahay big fee. Marka 3 erey oo isku macnaa ayaa haysataa, marba midkaa rabtid ayaad soo qaadanaysaa. Medical fees waa lacagta caafimaadka aad bixisid ayaa lahaa medical fees. An annual fee lacag sanadkiiba mar aad bixisid ayaa lahaa annual fee. Monthly fee lacagtii billaha ayaa lahaa mar bishii mar aad bixisid ayaa lahaa. Marka cashirkan waa cashir aad iyo aad muhiim u ah oo ku saabsan lacagta. Waa words about money, ereyo ku saabsan lacagta. Marka waxaan rajeynayaa ereyadii hore aad u baratay luqadda Ingiriisiga inaad ereyadan kusii darsan doonto, oo haddii aad maqasho ereyadan oo kale aad durbaba fahmi doonto, aad buuggaaga ku qoran doonto, aad xifdin doontid, aadna adeegsan doontid maalin kasto. Marka haddii aad janaalkeena aad ku cusub tahay, fadlan subscribe inoo san, commentina kasoo bixi, like-na inoo dheh. Sidoo kale la wadaag asxaabtaada meel kasta ay joogaan. Mahadsanid. Intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkii maanta ku saabsanaa ereyada lacagta. Intaan ku kulmi doono cashirkan mid lamid ah, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum